السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داوديل halkani waa telefishinka STN oo idinka imanaya magaalada Los Angeles ee gobolka California kusoo dhawaada waraysi gaar ah oo aanu la yeelan doono afayeenka xisbul xaakimka kulmiye ee Somaliland mudane Cabdinaasir Booni sidaad la wada socotiin doorashooyinka isku sidkan ee golayaasha deegaanka iyo baarlamaanka ayaa bishan dabayaaqadeeda lagu wadaa inay ka qabsoomaan guud ahaan Somaliland Cabdinaasir Booni hadda ayaa uu si toosa khadka ugu jira isagoo ku sugan magaalada Boorama mudane Cabdinaasir Booni ku soo dhawow telefishinka STN aad iyo aad baad u mahadsan tahay fursadda aad na siisay su'aasha ugu horreysay ku weydiinay waxay tahay guud ahaan waxaad warbixin naga siisay adigoo soo koobaya sida ilaa imika loogu diyaar garoobay doorashooyinka soo socda aad iyo aad baad u mahadsantihiin baahda STN TV iyo warbaahinta halkan joogta maanta iyo adiga oo wariye Cawaale aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa run ahaantii waxaad la socotiin in guud ahaan dalka Jamhuuriyadda Somaliland ay ka qabsoomi doonto 31 bisha May doorashooyinkii isku sidkanaa ee golaha wakiilada iyo golayaasha deegaanka dalka Somaliland oo maraaxil kala duwan ay soo mareen xulashadooda iyo qabanqaabada doorashooyinkaasi waxa Ilaahay mahadiya in gabagabadii hadda la marayo u diyaar galowga doorashooyinka aanad ogtihiin in maraaxil badan ay soo martay oo ahayd in saddexda xisbi qaran ee ka qayb galaya doorashadaasi isku sidkan ay soo xuleen musharaxiinta ugu qayb gali lahayd iyada oo laga duulayo shuruucda dalka u taala iyo la soo xulay musharaxiin waafaqsan shuruucda dalka u taala ee qofku ku noqonaya xubin golo deegaan ama xubin golo baarlamaan marka waxa xisbi ahaan sharaf noo ah in maanta xukuumadda uu madaxweynaha ka yahay mudane Muuse Biixi Cabdi ay tahay xukuumaddii ugu horeysay ee dalka diiwaan gelin ay ku baxdo dhaqaale xukuumaddu bixisay lagu qabtay isla mar ahaantaasina doorashooyinka isku sidkana 57% ay bixinayso xukuumadda Jamhuuriyadda Somaliland taasna sharaf weyn ba xisbi ahaan noo tahay waxaan u mahadnaqayaa runtii xisbiyada qaranka oo si wadara uga wada shaqeeyay qabanqaabadii doorashooyinkaasi maanta halkan soo gaaray iyo guddiga doorashooyinka iyo cid kasta oo ay ka mid yihiin laamaha amniga dalku waxaan fursadan aniga oo maanta uga faa'iideysanaya waraysigan telefishinkan in shalay dalka ay soo gaadheen waraaqihii codbixiyayaasha Jamhuuriyadda Somaliland ay ku codeynayeen taasna sharaf weyn bay noo tahay xisbi ahaan waxaan ugu mahadnaqaynaa shaqadaasi iyo waqtigii munaasibka ku ahayd ay keeneen dalka guddiga doorashooyinka qaranka oo runtii muujiyay shaqo fiican taana waan ugu mahadnaqaynaa komishanka marka guud ahaan isku soo duuduuba hadda gabagabadii waxa la marayaa u diyaar galowgii ololaha iyo campaignkii xisbiyaduna maalintii dhawaato shirkii qaran ee madaxweynuhu shir gudoominaya ay ku heshiiyeen maadaama munaasabada qaran ay jiraan bil cibaadana laga soo baxay xanuunkiina uu wax wari uu jiro balse uu si yaraanayo in la koobo marka maalmihii khayriyadaha la tagayay iyadoo bulshaduna intaaba maadaama doorashooyinkan aan ahayn doorashooyinka madaxtooyada balse ay yihiin doorashooyinkii imka afraad la dooranayo dadka in dadkuba campaignkooda iska sii dhameysteen oo haday deegaanadii loogu codeynayay tahay iyo bulshadoodu ay ku dhaqnayd in muddo 3 biloodaba campaign lagu soo jiray marka ay noqon doonto laba cisho oo guud ahaan saddexda xisbi ay isku noqon doonaan 6 maalmood maalinta koobaadna khayriyadaha la tagi doono maalinta labaadna xisbi kastaaba sidoo u dhigayo ay isaga ku xidhnaan doonto marka guud ahaan gabagabo ay ku dhowdahay u diyaar galowgii doorashooyinka waana ku tahniyadeynaya shacbiga reer Somaliland sida ay ugu diyaar galoobeen waxaan ugu baaqaynaa xisbi ahaan sidii lagu yaqaanay inay nabadana u ilaaliyaan una gutaan xuquuqdooda dastuuriga ah ay tahay in waxna ay doortaan lana doorto wahagaag deegaamada ama goboladaas leedahay xisbigu waa ka soo bixi karaa oo waa ku guuleysan karaa waa kuwee horta arintaasi waa de guud ahaan dalka Jamhuuriyadda Somaliland oo dhan ayuu xisbiga kulmiye taageero ka rabaa deegaano gaara oo uu ku hooseynayana ma jirto
deegaano gaara oo xisbiga kulmiye gaar uga soo baxayaan ma jirto laakiin dasaad u ogtayba xisbiga kulmiye waa xisbi fac weyn oo inta xisbiyada nidaamka xisbiyada badan Soomaaliland ay jiraanba dalka Soomaaliland soo joogay markii uu mucaaradka ahaana xisbi adag oo taladii dalka la wareegay uu noqday xisbigii koobaad isagoo mucaarada talada dalka ee la wareega mar labaadna madaxweynihii shanaad ee Soomaaliland uu ka soo baxay isla xisbiga kulmiye aanad ogtahay in doorashooyinkii Soomaaliland ee madaxweynayaashu uu yahay xisbiga kale hata laba doorasho madaxtooyo ay ka soo baxeen laba waxa weeye musharax oo ku guuleystay taladii dalkan oo madaxweynayaal ka noqday dalka Axmed Siilaayo kulmiye ahaa iyo madaxweyne Muuse Biixi Cabdi marka anagoo taa ka duulayna guud ahaan jamhuuriyadda Soomaaliland number 1 ayuu ka galayaa xisbiga kulmiye taageerayaashiisana uu hubaa waxaana la arki doonaa codka ee aqlabiyada ah ee uu dalka guud ahaan ka keeno mudane afayeen adigu waxaad ka soo jeedaa gobolka Awdal sidaanu la wada soconnana xisbiga kulmiye doorashooyinkii tagay marnaba in kuma guuleysan gobolka Awdal ama kaalinta koobaad kama galin raje intee leeg baad hadda imika ka qabtiin in uu xisbiga kulmiye uu gobolkaas ku guuleysto warunta xisbiga kulmiye intii uu jiray saddex doorasho madaxtooye dalka ka dhacday saddexda doorasho madaxtooyeba number 1 kamu galin doorashooyinkaasi soo dhacay xisbiga kulmiye waxay doorashadan noqon doontaa iyo doorashooyinka ka sii dambeeyaba xisbiga kulmiye xisbiga ugu horeeyay ee number 1 ka gala gobolka Awdal taana waxa keenaya isbedel siyaasiya oo xisbiga kulmiye iyo gobolku iskula jaan qaadayaan oo dhawaan curtay marka waanu filaynaa in siyaasadda cusub inay xisbiga kulmiye number 1 ka galo waxa weeye gobolka Awdal isagoo guud ahaan awalba gobolada kalena number 1 ka galayay taasina ay horseedi doonto in madaxweynaha lixaad iyo madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland ee soo socdaaba ay noqon doonaan xisbiga kulmiye inuu ku guuleysto guud ahaan dalka Soomaaliland gaar ahaan gobolka Awdal uu noqdo xisbi guulo taariikhiya ka keena marka aad iyo aad baan ugu rajo weynahay hadii aad tiri gobolka Awdal kaalintu ka galaya inay noqon doonto doorashadii ugu horeysay ee xisbiga kulmiye uu number 1 ka galo gobolka Awdal iyo guud ahaan dalka Soomaaliland sidii lagu yaqaanay dad badan oo reer Soomaaliland oo gudaha iyo dibadda jooga waxay aaminsan yihiin in xisbiga kulmiye isagoo adeegsanaya in awoodda dawladda oo musharaxiin fara badan la xirxiray qaarkood loo cagajuulay sidee loo filan karaa in ay dhacdo doorasho xor iyo xalaala kol hadii uu xisbin xaakimkii ama xisbigii talada hayay uu sharcigii jabinayo oo uu musharaxiinta kale xisbiyada kale uu ku xadgudbayo uu tacaddi u geysanayo horta waxaan kuu sheegayaa dalka Soomaaliland shuruucda u taala waxa lagu ilaalinayaa waxa weeye waa musharaxiinta jaranjarooyin bayna maraan xukuumaduna iyadu garwadeen kama aha hogaaminta doorashooyinka waxa hogaamiya guddi doorasho oo ka yimiday saddexda xisbi qaran iyo golayaasha sharci dejinta qaarkood oo dastuurku tilmaamayo in xubnaha guurtida ay ka yimaadaan xubnaha guddiga doorashooyinka ay ka yimaadaan marka guddidaasi oo kalsooni lagu qabo ayaa waxay hogaamiyaan doorashada iyaguna waxay ka duulaan ku ilaaliyaan shuruucda waxayna ku ilaaliyaan uga dambeeyaan xisbiyada qaranka ayaa soo gudbiya xisbiyadii dadka ay soo gudbiyeen ba sharciga lagu ilaaliyaa qofkii sharciga qabto ayaa la yiraahdaa qofkaasi ma buuxinin oo shuruucdii noocaas ka hor yimiday marka xisbiga lagu celiyaa bulshadii ma lagu celiyaa xisbiga lagu celiyaa dadka soo xulay dadkana waxa u dhaxeeya iyo komishankana waa xisbiyada marka xisbiyadii baa lagu celiyay xisbiyadii lagu celiyay ama sharciga lagu fuliyay xisbiga ugu horeeyay xisbiga kulmiye talada hayuha oo hal musharaxna sayrac lagu xiray laguna fuliyay sharciga xukun maxkamadeedna ku dhacay iyo waxa weeye iyo musharax labaad oo isaguna deegaanka ahaa waxa weeyaan ceerigaabo oo isagana lagu eedeeyay maalmihii ay socotay kaad qaybinta codbixiyaasha dalku inuu kaadh si sharci darro ah u qaatay tiina sharciga la horgeeyay laguna waayay kadibna la sii daayay taatu lamid bay la mid ahayd xisbiyada mucaaradkana dadkii laga xiray
in sharciga la horgeeyay kuwii wax lagu helayna lagu furiyay kuwii wax lagu waayayna la sii daayay marka mar wad iska garan kartaayo marka dawladdu ay dastuurkana waxa ilaalinaysa iyo qawaaniinta sharcigana xukuumadda u xil saaran xisbiyada mucaaradka iyo mid maxaafid waxa way uma xil saarna cidda dalka ilaalinaysa ee koobaad waa xukuumadda madaxweynuhu ugu sareeyo sharciga cid ka weyn ma jirto marka cidii sharciga lagu qabto dawad garan kartaa in xanuun badan tahay laakiinse in dadkuna ay bartaan shuruucdooda iyo dalka laakiinse cid jeclays iyo qof nacabi iyo dawlad cid u adeegsanaysa dawladnimo ma jirto maantana waa la wada joogaa shirkii u dambeeyay madaxweynaha Soomaaliland qaran ee lagu qabtay madaxtooyada ee ay joogeen guddiga doorashada gudoomiyaha maxkamadda sare xiriiryaha guud gudoomiyaasha xisaabta mucaaradka waxa la isku gartay in doorashadii la gardaadiyo la hogaamiyo sidaan wanaag lagu gaaro cid kasta wax tirsanaysan la iska cafiyo cid xidhnaydna ee waxa way sharciga ee laga maro la sii daayo ay tartanto taas ay guul ku dhamaatay maantana warkan nooli ma jirto wax loo diyaar galoobe loo dareerayaa waa doorashadii marka taana waxaan u dhaafayaa go'aanadii shirka qaran ka soo baxay marka culays badan oo maanta jira oo ma jirto cid cabanaysa doorashadana marka la kala guuleystana sidii Soomaaliland isku tahniyadeyn jirtay ayaa la isku tahniyadeyn doonaa waa barotan waa kubadda la ciyaaray cid badisana waa la tahniyadeynaya cid guul dareysatana de calaf iyo nasiib warki doontaa wax kale oo meesha yaalaana ma jirto tartan u baayaala xisbiyada siyaasadda waxa loo sameeyay in lagaga baxo qabyaaladda hadda sida muuqata ama ay tahayna musharaxiintii waxa soo xulaya beelihii ay ka soo jeedeen ma isleedahay ujeedooyinkii loo aasaasay xisbiyada waa laga leexday horta taa kulama qabo xisbiyada waxaynu aasaasanay in nidaamka xisbiyada badan uu hirgalo qabyaaladana lagaga baxo taana waynu muddo dheer baynu ku naaloonaynay waanad ogtahay in Soomaaliland nidaamka xisbiyada badani uu keenay in la isku bedelo madaxweynayaal nidaam xisbi isku bedelaan golayaal sharci dejin nidaam xisbiyada isku bedelaan golayaal deegaan nidaam xisbiyada isku bedelaan oo maanta waxaad ogtahay qofka ka soo baxay tusaale ahaan waxa weeye xisbigii udub ama xisbigii kulmiye ama xisbiga ucid oo maanta golaha wakiilada ay ku fadhiyaan hadama xisbiga wadanaano doorasho golaha wakiil la gelin in qofkii dhinta ee jashi Ilaahay u timaaday uu bedelayo qof reerkiisa ahayn marka taasina ay keentay nidaamka axsaabta badan oo qofkii xisbinimo la isku xigo marka taa lama oran karo dalkeenu wuxuu soo maray maraaxil fara badan taatiri waxa weey dadkii waxa soo xulay bulshadooda soo xulaysana de marka horeba qofkani sida qaanuunku dhigayo ninka mudanihii waa matalaad dhab ah ayuu ka haystaa gobolkiisa iyo deegaankiisa waxa uu matalaana waa dadkii iyo gobolkii uu ka yimi marka taa sharcigaaba uu ogol in cidii wax matalaysana waxa weey bulshadu iska soo xusho nidaamka axsaabta badan ay soo mariyaan shaandadaasi la mariyo kadibna uu qofku sidaas ku noqdo de qof matalaya waxa weey gobolkiisii iyo dadkiisii taana de waa tahay inuu samaysanayba in waxa weey nidaamkii axsaabta badan iyo golihii wakiilada matalaada dhabta ah ee dadkii de goboladii ay saamiyay ku kala leeyihiin waana de wax macruuf ah adduunyada iyo meel walba ka jira laakiin la isku qaldoon baa daray inuu qofkii u fahmo ama dadku u fahmaan inuu qofkani u joogo waxa weey qabiil laakiin qabiil ma aha wuxuu guud ahaan matalaya markuu sharci dejintii yahay Soomaaliland oo dhan haddana wuxuu sii matalaya xisbigiisii haddana wuxuu sii matalaya bulshadii soo xulato xuquuqdoodii iyo caafimaadkoodii iyo noloshoodii ijtimaaciga ahayd haday dawladii hoose tahay iyo haday tahay golihii wakiiladaba uu ka shaqeynaya marka taasna waxa weey waynu koraynaa oo maalinba meel baynu maraynaa oo maalinta ka dambaysa Soomaaliland waxay ku sii talaabsanaysaa korniin dimuqraadiyadeed marka taana waxaan rajaynayaa ama aan aaminsanahay in guul laga gaaray waxa weey in Soomaaliland nidaamka axsaabta badan ay dadka iyo bulshaduba ku faa'iideen waana tamaanta keentay dadku in doorashooyinkii waxa weey madaxtooyada in maanta doorashada laftirkeegu aanay dadkii isdhaafdhaafeen oo xisbiyadii la isku guurguuray oo qofkii meeshu ka soo bixi karo uu siyaasiyan uu tagay marka taasina waxa keenaysaa waad fahmi kartaa inaanay nidaam marka qabyaladeed aanay jirin ay tahay siyaasi waxa weey qofku xisbigu mabdiyan isfahmi karaan ka soo bixi kara siyaasadiisa uu ku qancay matali kara hadhowna golayaasha sharci dejinta uu ku matali kara iyo golayaasha deegaanka marka taasna waa taas weey
waagaag dad badan oo siyaasadda somalilan oo dorosa waxa ay saadaalinayaan in xisbiyada mucaaradku ay ku guulaysan doonaan aqlabiyadda baarlamanka adigu taa ma la qabtaa haddii aan si kale kuugu dhigo raje intee leeg baad ka qabtaa in xisbigaagu uu ku guulaysto aqlabiyadda golaha wakiilada ee somalilan horta marka saddexda xisbi wax la yiraahdo labada xisbi aqlabiyadda ay ku guulaysanayaan ma jirto dalka waxa si madax bannaan loo kala tartamaya kulmiye iyo ucid iyo wadani ayaa loo tartamaya marka saddexdooda marka saddexda isbarbar dhigto tirada ay ka helaan waxa weey golaha wakiilada tusaale ahaan waxaan aaminsanahay in xisbiga kulmiye uu number 1 gali doono xisaabta kalena ay sidaas ugu kala xigi doonaan laakiin laba xisbi mucaarad oo isku jiro sharcigu dhigayo inay waxa weey imika iyagoo halkan jooga la dhax xisbiyada mucaaradka aqlabiyada helayay ma jirto waxa loogu magac darayaa ama loogu waxa weey yaadaya waxa weey xisbi hebel muxuu helay kulmiye muxuu helay wadani muxuu helay ucid muxuu helay marka de la yimaado mudanayaasha calafka ku helaa qadarka ilaahay qadara ay soo fariistaana waxa ay noqon doontaa inay dalkooga iyo dadkooga iyo siyaasadda guud iyo siday mabdiyan iyagu isku raacayaan ay waxa weeyaan iskugu waxa weey wax iskugu darsadaan cid u diidaysaana ninka maanta waxa weey kulmiya ee soo baxa iyo ninka u ciidee soo baxa waxa weey in maanta golaha wakiilada marka ay yimaadaan waxa weey qofku waa xor weey xisbi uu xiran yahay iyo ma jirto marka waxaan aaminsanahay aqlabiyadana inaanu helayno shirgudoonkana maanta waxa weey xisbiga kulmiye ku guuleysan doono ayna diyaar maanta yihiin oo calaamadaysan yihiin dadkii waxa weey kartideeda lahaa ee hawsheedaas lahaa ee waxa weey maalinka maanta ee qadiyada waxa weey Somaliland meel gaarsiin lahaa qadiyada xisbiga kulmiye iyo mabaadiida xisbiga kulmiye kor u sii qaadi lahaa waana ogtahay raggii kulmiye ka soo baxay 2005 kartidii siyaasiga lahaayeen iyo guulihii ay dhaliyeen marka waxa filaynaa maanta xisbiga kulmiye dadka uga soo baxay inay noqon doonaan dadkii guulaha siyaasiga ee madaxweynaha lixaad ee Somaliland kulmiye ka soo dhaxbixi doonay madaxweyne ku-xigeenku ay hordhac u tahay dadka maanta golaha wakiilada yimaada ee xisbiga kulmiye aqlabiyadiisa ugu badan uu ku guuleysto xisbiyada kalena waxaan u rajaynaynaa khayr fara badan laakiin tartan baa naga dhaxeeya marka banaanka la joogo marka shirgudoon iyo doorashadiisa iyo golaha wakiilada ay noqotana tartan baa naga dhaxeeya colaadi ma jirto iyaguna dalka u shaqeynayaan anaguna dalkan u shaqeynayna wax ma jirto colaadihi kee yimaadana Somaliland iyo qadiyadeeda iyo qarannimadeeda unbuu waxa weey hogaaminaya oo qaybtiisa intii qaanuunka dalku u dhigay u qaadanaya marka wax ma jiraan culays oo laga cabsaday ma jiraan kulmiyana uu yaqaan tabaha ku guuleysanayay xeeladaha siyaasiga isticmaalayo iyo kalsoonida shacbiga uu ka haysto marka waxaan filayaa intaasina ay tahay mid iska iman doonta waagaag ugu dambeyntii maxaa fariina u diraysaa shacbi weynaha Somaliland shacbi weynaha reer Somaliland waxaan u sheegaynaa in maanta ay ku soo fool leedahay sanad guuradoodii 30aad ee 18 May ku sii tahniyadeynayo taariikh weyn bay u tahay Somaliland inay 30 jirsato iyagoo heer ka gaaray qadiyadihii iyo madax banaanidoodii ay la soo noqdeen iyo ahdaaftii ay kala haayeen inay maanta gaadheen kana midhadhaliyeen waan ku tahniyadeynaya taasina waxay ku timiday shacbiga reer Somaliland oo is aaminay dalkoodana aaminay qarannimadoodana aaminay doorashooyinka Somaliland maanta isku sidkanay noo soo socdaana ay yihiin doorashooyinkii Somaliland ay xaqiijisay kuwa lamida tan ay kaga sii duwan tahay laba doorasho isxabaarsan oo marba marka ka dambaysa inuu ku sii talaabsanayno inaynu doorashooyinkeena isku rararno madaxweynuhu horeeyay Somaliland Master Biixi uu yahay nin maanta ku talaabsaday inuu labada doorashada qabto dhaqaalahoogiina bixiyo doorashooyinka ka sii dambeeyana aynu 4 iyo 3 iyagana iskugu rararno si markaasi nooga yaraato 5 sanaba inaynu doorashooyin hor leh oo istaba joog aynu gallo marka shacbiga reer Somaliland waxaan ugu baaqayaa in guud ahaan qarannimadooda ilaashadaan nabadoodana ilaashadaan doorashooyinkoogana waxa u diyaar garoobaan dadkuna sida xaragada lahayd ay u tartami jireen marba waxa weey kii guuleysta loo garab istaagi jireen loo garab istaago waa tartan
cid waxa weeye la colaysanaya cid dalka gaar looga leeyahay ma jirto oo barotaka siyaasadda marka lagu kala dheereeyana la iskacan qaadayo marka shacbigana waxaan leeyahay layni dardaari maayo dalkiina iyo dadkiina saad ugu shaqayn jirteen uun maantana waxa weeye tii uun baa laynaga sugayaa ciidamada nabadgelyada ee dalkana waan tahniyadaynayaa iyagana waxaan leeyahay guul iyo gobonnimo aynu rajaynaynaa dhammaanna warbaahinta Somaliland iyo kuwa madaxa bannaan iyo kuwa caalamkana waxaan u rajaynaynaa inay Somaliland iyo qadiyadaheega ay xaqiijinayso in iyaguna qaybtooda ka qaataan aad iyo aad baa mahadsantiin waa hagaag aad iyo aad baad u mahadsan tahay kaasi waxa ahaa afayeenka xisbiga kulmiye mudane cabdinaasir buuni oo khadka si toos ah ugu jiray isaga oo ku sugan magaalada Boorama barnaamijkina intaas ayaa uu ka eegyahay waxa idinla socodsiinayay anigoo ah Cawaale Cabdilaahi oo ku sugan magaalada Los Angeles ee koonfurta gobolka California intaanu dib u kulmi doono waxaan iga tagay sidaas iyo nabadgelyo